waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in barkad jaamac batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi isdoortay heshiiyey kadibna isguursaday wabacdayna ilmo ilaahay ku arsaaqay waxay isku dayeen inay kala geeyaan niyada iyo sidoo kale jaceylkeeda qofka ay jeceshahayna waa xildhibaan barkad batuun oo xiriir jaceyl oo qoto dheer uu kala dhaxeeyo qofkan ka hadlayo isla markaana ereyadaas cabiraysa waa wariye Mustaaq Cabdi Naano oo kamid ahayd wariyaasha ka howlgala Somaliland hase haatee gabadhan ayaa shir jaraa'id ay qabatay maantay waxay shaaca kaga qaaday inay isguursadeen xildhibaan barkad batuun waxay tilmaamtay gabadhan inay soo gaarayaan fariimo kala duwan oo siyaasiyiin qaar ay u soo dirayaan isla markaana waxay sidoo kale gabadhan iska fogeysay wararka been abuurka ee lagu faafinayo baraha bulshada qaarkoodna siyaasiyiinta ay jeedinayaan ee la xiriira gabaryahay waxaad guursateen inaan ku qalmin iyo sidoo kale nin reerkiisa uu liito laakiinse Mustaaq ayaa waxay cabirtay qiimaha iyo sidoo kale farxadda ay u hayso xildhibaan barkad batuun waxaana ay sheegtay in xiriir jaceyl oo muddo badan ka dhaxeeyay isla markaana xulasho iyo sidoo kale isdoorasho ay isku darsadeen sida daraadeedna ay noqdeen lamaane nolosha ku midooba Mustaaq ayaa cabirtay isla markaana tilmaamtay iyadoo difaacaysa xildhibaan barkad batuun ninkan waa ninkeyga waa qofkaan jeclahay waa ruuxa aan doortay marnaba lagama yaabo in hadalla dadka qaar ay sheegayaan inaan ku kala tagno ama aan isaga ku naco waa qof wanaagsan inta qof bilaadan qiimo uu leeyahay ayuu isagana leeyahay sidaas waxaa tiri Mustaaq Cabdi Naano iyadoona digniin u direysay shakhsiyaadka ku howlan ama ku mashquulsan kala geynta iyadoo sidoo kale saygeeda xildhibaan barkad batuun